ورحمة الله وبركاته. أدبر دي سلامة يا جود هانتين با ضمان شعب الصومال مركز الدنيا شوكتو قف كصوت ضمير له كهذا كرا مرحلة ضمان تتهاجن مرحلة ضمان تتهاجن ومرحلة شنجر إلا يكون تنجر إلا بقتلوا كهذا كرا وحويا مدحوين ندرك ودورني وليبا waxaan ku jiray dadkii campaign-ka weyn u galay horta dambi kasto sameeyo madaxayga uu saaran yahay waayo waxa la yiraahdo qofka inta in laga qabtaa dambiga waa la leedahay madaxweynaha waan uga mahad celinayna wax badan uu qabtay laakiin maanta waxa la garan waayay shacabka sidii loo geyn lahaa Soomaaliya oo Soomaaliland isku bil marka waxa weeyaan shacabka in maskaxda laga dilo oo la daaliyo marka kol hadii imika la wareejiyay berbera way wareejisanta bay ka dhigan tahay nina waxa soo socon garani waxa hadda jooga ma garto ayaan leeyahay waxayna wadan aan la aqoonsanayn markuu saldhig halkan ka sameeyo maxayna ku dhici kara cawaaqib xumo baan oran karnaa hadii hablaheena noqoto hadii dalkeena inaan ikhtiyaar u lahayn noqoto lacagta lagu wareejiyay iyadoo aad iyo aad u meeqaan hoosaysa in dalkii la iibsado oo la afduubo oo xildhibaanadu dadkii shacabka ahaa ee masayrkooda u dhiibay ay sidaa u galaanayna kalsoonidoodii ay hoos dhigaan inay siiraayeen lacag yar oo $2,000 ay ka qaataan aad iyo aad baan uga xumahay xildhibaanada jira xildhibaanada dambana ma soo baxayaan waxaan idin leenahay intii aad noo gaban lahayd maanta idin cadeynaa Muqdisho haddaad rabtaan Soomaaliland midowdo si toos oo dadnimo raganimo ku jirto hal loo wada hadla shacabka la hadaalinina Soomaaliland baad u socotaan in la isku daree saaka diyaar baa loo yahay labada dawladood ha wada hadlaan farmaajona gaarsiiyaan leenahay waa halkii maxaa la yiraahdaa farmaajo noo geeyay miyahay farmaajo noo geeyay maraysaay waxba shacabka ciidamo shisheeyaha dhexkeeninay oo waliba halkii dakhligu ka soo galay dalka ha ku wareejinay shalay baa la lahaa dekada la wareejiyay maantana waxay keeneen in berbera ciidamo shisheeye keenaan oo beritoolana Hargeysa waa la nagu xuri doona marka cid lagu xuriyo waa la garanayaa heede xukuumaddu ceeb iyo cayd baa isku darsatay adduunna may qaadano way saqajaan socotay oo qofka bilaadanka xitaa markuu wax wareejinayo bilyanis buu ku xisaabtama laakiin iyagu meeqaamkooda aad buu u hooseeya waxaan idin leenahay kalsoonidayadii iyo shacabkii aad badniyada uga disheen waxaan idin leenahay intay naftu naga bixi doonto waana idin la dagaalami doona aakhiriya adduuntoona meel kuma lihidin xildhibaanadana waxaan idin leeyahay hal baa la idin ugaarsan doona shacab baad codkooda ku joogtaan